بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كلنتي هابون داوديال إن الهانتيمبا waxaad ku soo dhawaataan qaybtii afraad ee sheekadeeni takoor. qaybtan waxay ku bilaabmaysaa sidan waa ayadii oo sariirteeda dul fadhida waxay xidhan tahay foodadii aadka u quruxda badnayd iyo dirac madow oo dhaldhalaal leh. gacmaha waxay ku wadwadaa foodada dacalkeeda hore waxaa ka muuqda xishood badan, indhaha hoos ayay u rogtay, dhabarka waxa ay ku haysaa madaxa sariirta, lugahana waa ay isdul saaratay sidii ubad madarisad jooga oo quraan akhriyaya. timaheeda dheer ee madowga badan waxay ka soo muuqdaan fooda hore ee madaxeeda. suuniyaha qorani waxa aad moodaa in ay u baaqayaan oo soo dhawow leeyihiin. ma soo galaa ayuu ku yidhi inta ay dhoosha bidix aayir dhoolla caddayn oo dugan karo dhag ka siisay ayay ku tidhi soo soco walaalo. alla beerka inta uu hoosta ka yidhi oo sidii ruux koronta ku dhegtay gacmuhu gariireen isagoo aad moodo sidii wax xumad hayso oo xabeebsaday ayuu yidhi walaalo hadda sidee tahay? alxamdulillaah alle waa ii roon yahay walaal, waan fiicanahay, adigu dhankaaga ayay ku tidhi. isaguna waxa uu yidhi anna sidoo kale alle waa ii roon yahay. halkaa marka uu maraayo ayuu su'aal si kulul u weydiiyey, waxaanu ku yidhi walaalo haddii aad reerkiinni xasuusanba weyday yaa ku hayn talow? ismay dhibini waxay aad yar tiri oo ma cid kale walaalo oo aan adiga ahayn. inta uu naxay ayuu ugu jawaabay laakiin anugu sidaan kuu sii hayn karaa walaalo? isma dhibto waxay tiri oo haddaadan ii hayn karayn maxaad iiga iman weyday oo aad ii soo qaadatay? inta uu soo booday ayuu yidhi dee bili-aadantinimo ayaan kuu soo qaaday walaalo. mar kale ayaa iyada oo aan isdhibin wanyar ugu jawaabtay mar haddaad bili-aadantinimo ii soo qaaday dee haddana bili-aadantinimo uun ii hay. hadalkii way ka xidhay, xoogaana uu iska sii daldalmay. oo adigu horta cidba in aadan lahayn ayaa laga yaabaa, waa adiga aragtidaada walaalo. waxaa laga yaabaa saacaddan in ay ibaadi goobayaan qoyskaygii ayay igu jawaabtay. alle nasiib xumida walaale, xitaa qofku jecel oo ku doondoona malihid miyaa? inta ay qosashay oo aad yar dib u fadhiisatay ayay ku tidhi maxaan uga baahanahay? adaaban ku haystaaye sawdigaa adigu i garab taagan maaha walaale. haddana waan yara nasane adna iska soo naso walaalo. haye ayuu ku yidhi. qolkeediina uu ka soo baxay. waxa uu iska fadhiistay mid ka mid ah kuraasida lagu nasto ee cusbatalka. xoogaa maskaxda ayuu yara leyliyey isagoo oo kolba xasuusanaya weedhihii quruxda badnaa, waxaana u bilowday jawi kale. waa janno ku sug, sidaas ayuu isleeyahay. haa wallaahi ayuu haddana isugu celiyey. waxaa kolba soo hormaraya dhabanadii gudnaa iyo dhaayihii dhugashada ku beeray. kol kale waxa uu maanka mar kale ku celiyey hadalkii macaanaa ee walaalo ku dheehnayd. waa kaa maanku fariimaha u soo diray. allow waa mahadda adigaa midigta ii geliyey malaa'igtan yare, sidaa isaga ayaa maankiisa ku xasilinaya. xoogaa markii uu halkaa fadhiyey waxaa u yeedhay dhakhtarkii, waxaanu ku yidhi adeer idhanta waa inaad caawa halkan ku haysaa, waxay cuntana waa in aad u doontaa, marka saari kartid dhakhtarka ilaa berri, wixii dambana waan kula soo socodsiin. haye ayuu ku yidhi. jawigiisiina wuu iskaga noqday oo xasuustii maanka xadantaynaysay ayuu dib u bilaabay. kolka uu indhaheedii dib u xasuustay oo weli aanu sankii dheeraa ee dhiibsanaa soo gaadhin ayaa tu dharcadii cod dheer ku tidhi war ninkow inantii xanuunsanaysay ayaa kuu yeedhaysa. qalladdu maxay nooga jiidhay? haddana yeedhmadaasu ka helay, dhankeediina wuu u soo kacay. inta uu ku soo socdo waxa uu isleeyahay talow maxay kuu odhan doontaa? waxaa dhagihiisa ku soo dhacaya eedaanka masjidka u dhow. isyidhi ma salaadii duhur ayaa la gaadhay? waa tukan ayuu dib isugu jawaabay. qolkeediina waa kaa soo galay. iska warran walaalo ayuu hadalkii ku bilaabay. dhan kale quruxdeeda ayuu hoosta isha kaga xadaya. waxaad moodaa ayana in ay la socoto oo sibay indhaha uga meermeerinaysaa. waan fiicanahay walaalo, waxaan u baahnaa in aad isoo yaro warwareejiso meelahan markaad salaada casar soo tukato. jiifkan ku daale sow jaanis ma haysid? waxuu yidhi haa walaalo waan ku soo warwareejin, jaanisna
waan hayaa oo casar miyaa la gaadhayba duhursamii xagguu igaga tegay waar balyaabkan daya intaan maantaba isdaba wareegayay ayaa salaadii duhur idhaaftay sidaas ayuu isyidhi haye walaalo soo dheeree oo soo togo ayay ku tidhi isna haye ayuu ugu warceliyey qolkeedii waa kaa ka soo baxay salaadu sida ay ku dhaaftay ilaa hadda jawaab uma hayo casarna wuuba ka baqayaa inuu dhaafo iska gel masaajidka iskana sunnaysay dadku salaada waxay ku sugayaan qur'aan akhris isaguse mid iimaankiisa hantiday ayuu aqiimka salaada ku sugayaa waxa uu isweydiinayaa sida uu u soo wareejin doono armay gacanta ku qabsataa ayuu isleeyahay waa doob aan weligii inaan la haasaawin oo tababar hore ma qabo waxbaa ku leh halkaa waxbaa ka soo jeejeele yeelkadeed ayuu isna leeyahay wardaa ha kugu soo dhacdee adiga fursad baa kuugu jirta oo inan baa gacantaada qallaftay qabsan doontee allow ii dambi dhaaf ayuu haddana isyidhi imaamku salaadii gal isna meel halkeeda ayuu fakar la fadhiyaa waa kaa salaadii imaamkii rukuucay noqoy sidii ruux baaldi biyo ah lagu shubay oo inta uu soo hambabaray degdeg ula rukuuc imaamku salaadiisii iska waday isna waa kaa ruux tukanaya jilaya maankuna waa kaa midii ku maqan salaadii dhammaatay isaga oo wax uu tukadayba aan garanayn iska soo laabay oo dhankeedii u soo guuti waa kaa soo galay qolkeedii iyada oo diyaar ahba goorta ay sidan oo dhan u diyaar garowday ayuu isweydiinayaa waad soo daahday ayay ku tidhi haye iga raalli noqo ayuu asni ku yidhi waa kuwa qolkii ka soo baxay qolka markii ay joogtay caadi ay u soconaysay waa kuwa albaabkii furay baxa marka is yidhaahdeen ayay dhankiisii u soo leeday oo gacanta qabsatay sidii ruuxa badi ku dhacday ayuu indhaha taagay maxay markii horeba kuu qabsan weyday iyo waa muqur maanku is yidhi warba waa ka dambeeye haddaba daawada la soco qaybta inoo xigta qaybteenan maanta sheekadanna waxaa qorideeda u qalab qaatay bahda dhigaal intaynu tan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo